اللهم وفقنا لما تحب وترضى waxaan soo booqtay maanta bisha tahay 9 bishii afraad 2022 ciidanka dandamiska Jamhuuriyadda Somaliland xafiiska jaranaarka ciidanka Sawaaxili runtii oo nin taariikhda Jamhuuriyadda Somaliland wax fara badan iyo wax badan u qabtay taariikhdana baaldahaba ka galay waa taliyaha isagii ciidankiisuba ay u gurmadeen habeenkii dhaweed dhibaatadii weyneed ama masiibadii weyneed ee ka dhacday bartanka suuqa magaalada Hargeysa dabkii ka dhacay waxa uu taliyuhu leeyimi fishing maanta gurmadka keenay waxa uu kala yimi wadamada Carabta waxa uu dhiximi Somaliland waxa aan taliyaha iyo ciidankaba halkan maanta mahad ballaaran oo aan la qabo dhammaan Jamhuuriyadda Somaliland dadweynaheeda daliya dibadba madaxda Jamhuuriyadda Somaliland culimada ganacsatada cid waliba maanta mahadnaqay u qabta ciidanka iyo hambaliyada asaan taliyaha u leeyimi runtii iyo ciidankiisaba waxa aan taliye ugu mahadnaqayaa sida qiimaha iyo sharafta iyo karaamada lahayd ee wanaagsanayd ee aad u dhextaagnayd runtii habeenkii dhaweytoole suuq u gubtay suuqa weyn waaheen ee ugu dhex shaqeynaysay adig iyo ciidankaaguba saacado 22 saacadood oo xiriirayna ka shaqeynayseen ilaa imika inay dabdamisadii qaar taagayeen taliya waa ka warhaynaa waxaan kaaga mahadnaqayaa sida ku shaqeyseen ciidanka guud ahaanna aan idigu wada mahadnaqayaa runtii dhammaan qaranka Jamhuuriyadda Somaliland wuu wada barbar taagayahay daliya dibadba taliya waa ku faraxsanahay shaqadiina runtii shacabweynaha Somaliland oo dhamina magaalo kasta joogaan iyaguna waa idin mahadnaqayaan taliya dibadba taliya warkaysan sida leedigu soo ducaynayay maantara ducadaas uma ka qayb qaadanaya waxaan jeclaystay aniga iskay inaan maanta taliye kugu wareejiyo check 5 milyan oo aan ugu tala galay ciidamada bal inkiis ay xooloon waxba kaga noqon mayso waa lacag yar laakiin inay bal dadkuna ugu daydaan aniguna bal u horseedo dadka inaan ciidankii dhiirigelin xoolo loo siiyo hadii Ilaahay dhaahdo iyadoo rabadaan lagu jiro habeen qura ay ku afuraan ama ku casheeyaan in waxaan la garab taagnaan doonaa mar walba ciidanka dadamiska hiiliyo hooba hadii Ilaahay dhaahdo waan kugu hambalyeynaya taliye Ilaahay miisaanka xasanaadkana ifka inta la jooga waa in iska yar adig iyo ciidanka waxaan leeyahay Ilaahay miisaanka xasanaadka ay idigu diro shaqada adag ee aad qaranka u haysaan bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in maanta bisha afraad iyadoo sagaala waxa na soo booqday Cabdi Casiis oo ahaan jiray meerkeenkii hore oo annaga nagu nin aad iyo aad u culus nin aad iyo aad u qiimo badan nin aad iyo aad aan u soo dhaweynino sababta tahayna bilowgii ciidanka dabdamiska nasiib Cabdi Casiis oo madaxweyne ku-xigeenka ayaa nala bilaabay na dhiirigeliyay markana meerka xigeen buu imikana waa gudoomiyaha ku-xigeenka qandaraasyada waan si kala jeedamika socdaalkana loo yimid waa jacayl loo qabo waa dhiirigelinayo Cabdi Casiis maanta booqashadadan iyo hadiyada noo keentay aad iyo aad ku mahadinna hadiyad yar maaha maanta markaan inamada uu sheegno naano gudoomiyaha ku-xigeenka qandaraasyada loo yimid hadiyadaas loo keenay waa ku ducaynina waa lagu wada ducayn doonaa insha Allah waxaan kula talinayaa inaad naga caajisin inaad hadii jeer sidii hore iyo tan maantaba aad noo daba socotid dabdamisku wada qabasho ayuu ku dhismaa marka maadaama dawladda hoose markaad ka tagtay aad qandaraas gudoomiyaha qandaraas ku-xigeenka aad noqotay idii kuma sheegin adigan maanta ma daba socda aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa mayor gudoomiye aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa meeshaadi hanaga qoob qaadin insha Allah barakallahu fiik